وعبد الله عبد STN TV تاريخ مانتو وا سديد إلى واتنكي بشي أغسطس لو كل يوم قبل واتنكا أنا وزارة هؤلاء جود وزير أحمد بشير الرو وزير أحمد بشير الرو وزير صباح ونكسر STN بقصب وقتي لأن سيد عادة أبريها وحنا كجرني وزارة هاينا نور وحنا كديارنا إن شاء الله وتعالى وقبض كودا سؤال دور بان ربنا كويديون إن شاء الله وتعالى دولة هاي إنه سؤال شيء كواد وزارة هؤلاء جود إيش شغلة عقبته بالور بحين جود بسم الله الرحمن الرحيم عبد الله عبد السودو يو SN TV كسر وزارة هؤلاء جود قاعدين كي يقولينته دولة بنتلان ما شاء الله وزارة هؤلاء جود قاعدين كي يقولين دولة بنتلان سيدا عادة مقعدة كم وقتها وحي قبتها دولة وكيل وحي وقتها هي هؤلاء جود وحلو يغانو infrastructure اسمياشا gaadiidka dadweynaha iyo kan dowladda iyo dhismayaasha khaaska ah ee hantida ummadda ah sida dhismaha dhulka dowladdu leedahay waxay ka kooban tahay 6 waaxood oo isugu jira administrationka engineeringka iyo consultantiga qaab dhismeedkeedu waa noocaas wasaaraddan waxay ka shaqeysaa wadooyinka oo hawlihii guuda gaadiidka iyo guryeynta markii la leeyahay waa hantida waxay u kala baxdaa tan ummaddu privateka u leedahay iyo tan dowladdu leedahay marka tay maamusho wasaaraddu waa tan ay dowladdu leedahay sida dhismayaasha dowladda dhulka dowladda iyo tan shacabka naftigiisa oo xagga shuruucda iyo nidaamka aanu dowladaha hoose kala shaqeyn su-aasha labaad macnaha waxaan aragnaa inay socdaan dayactir iyo dhismo wadooyinka macnaha isku xira dhammaan gobollada puntland kuwa roobka u burburiyey iyo kuwo cusub oo mashaariic macnaha howlahaas halkay marayaan halkay idin marayaan ma gabagabaa mise qaar baa dhiman waa mahadsan tahay sidaynu wada ogsoonnahay roobkii guba ee da-ay sanadkii 2019 wuxuu waxyeello badan u geystay waddada halbowlaha u ah isku xirka Soomaaliya oo dhan mashruuca dayactirku sidaas horta ku yimi waxa burburay dhammaan inta badan waddada Boosaaso ilaa Gaalkacyo isku xirta waxa go'ay bariijyadii iyo kalfartis waxyaabaha loo yaqaan ama biyo mareennada biyaha qaadayay runtii muddo 3 sano ah oo laga joogo hadda waxaanu raadinaynaa xalka iyo qorshihii iyo nidaamkii aanu waddooyinka sidii caadiga ahayd socodkooda u soo celin lahayn ilaahay mahadiis waxaa noo suurto gashay in mashruucii koowaad oo noqdo horta inaan dayactir ku sameyno dhammaan waddada Boosaaso ilaa Gaalkacyo markii aan ku kala qaado waxa aan ka soo bilaabo gobolka Mudug waxaa jira mashruuc la yiraahdo ay bixinaysay EU oo hadda ka hor fashilmay 2017kii mashruucaas dib u soo noqday wuxuu ka kooban yahay 65 kilomitir runtii maanta waa dhamaaday oo dowladda madaxweyne Saad Abdullaahi Deni ayaa gacanta ku guuleysatay in mashruuci dib loo soo celiyo oo dhamaado sidoo kale waxa la dayactiray Gaalkacyo 14 kilomitir oo rabaab la ah oo hadda shaqadeeda socoto iyaduna gabagaba marayso waxa dhamaaday buundada Qiyaadsame oo 5 buunda ah buundooyinka waaweyn runtii guulaha ay gaadhay wasaaradda howlaha guud iyo dowladda Puntland bay ka mid tahay waxaa dhamaaday sidoo kale 45 kalfartis ama biyo mareenno oo ku jiray gobolka Bari kala bayr ilaa Boosaaso waxaa dhamaaday iyaduna mashruucii Sani Chief ama digar meesha loo yaqaan areadaas oo iyaduna burbur xoog leh meel 9 kilomitir oo kamid ah iyo 56 kalfartis oo biyo mareenno ah oo iyagana dayactir xoog leh lagu sameeyay iyo Gambionka dhinacyada laamiga oo iyaguna lagu sameeyay dayactir xoog leh hadda waxa socota xaaji khayr iyo rabaable mashaariicda dayactirka aan sameynay waa intaas dib u dhiskuna waa mashruucaas jalam xarf mashruuca la yiraahdo oo isagu already gabagaboobay hadda waxa noo socda mashaariic hor leh gobolka Gardafu waxaan dhisaynaa 26 kilomitir oo waddada la faguraya already qandaraaskeedii shaqadeediina
isbuucana la bilaabaya haddii allah wado la galaamo. shaqada kaloo noo socoto wadooyinka waxa weeye Sheerbi Dhahar Xingalool 55 kilomitir uu maalgelinaya African Development Bank oo hadda uu madaxweynuhu soo daafuray. waxa noo qorshaysan shaqooyinka inta ka dhiman dayactir u baahan inaan dhamaystirno mashaariic hor leh oo maalgelin ah aan hadda bilowno haddii allah wado roga. ما شاء الله ما جرى قرشوين كوادن إن ودوين أسمايسان دمان ديانا بنتلان قارعان ملاها قاروانا waa mahadsan tahay. xeebaha waa sidaan kuu sheegay hadda waa qorshaha koowaad weeye oo dowladda iyadoo ka duuleysa in dadka lagu celiyo dhulkii khayraadka lahaa oo kalluumaysiga lahaa in lagu celiyo. waxaa qorshaha koowaad yahay wadada kala bayr ilaa Caluula in oo already sahankeeda socda hadda oo dowladdu ay sahankii ku sameynayso in ay priority 1 noqoto oo meelaha la dhisayo haddii la wado gobolada. waxaa ka mid ah dekeda Garacad ilaa Tuurdibi in loo helo iyadana wado already iyada sahankeedii iyo dhisaankeedii qorshaheedii waa soo dhamaaday. kaliya waxay u baahan tahay implementationkii dhismaha in la bilaabo. waxaa noogu xiga Qandala iyo dhankan bariga markii la sii aado waa meelaha xeebaha ayl baa ku jirta oo iyaduna qorshaha noogu jirta. mashaariicdaas oo dhan waa mashaariic in aan ku talagalay in dowladda Puntland ay maalgeliso in aan u qarino hay'adaha caalamiga iyo dadkan Soomaaliya wax ku darsaday dhaqaalaha inay ka maalgashtaan. ما شاء الله يا وزير هذا ما حسن عبد الشير تقال فرق بدن أيام إيش سقوط حي أما سقوط بعيد ولا سيدا أي نوع من دولة بنتنا وحساب بندق تقال فرق بدن بعنا إليه وده طويل كاسي تقالها سيا إذا كعاوية مثل حكومة بنتنا يا كفر كريسة. عبد الله وما سنتهي مشاريعdan hadda kuu sheegay markii laga reebo laba mashruuc 65 kilomitir oo jalam xarfa ah oo EU mashruuc laga soo celiyay maalgelisay mashruucan hadda socdo oo Sheerbi Dhahar Xingalool inta kale dowladda Puntland ayaa maalgelisay. muddo wali waxa ku bishaaraynayaa sanad gudaheeda in Agosto 2021 baa la dhagax dhigay heshiiskii horeysay wasaaradda maaliyadda wasaaradda howlaha guud kala saxiixdeen 90% maanta in ku jirnaa oo waa dhamaatay. ما شاء الله waxay ku tusaysaa marka capacity-ga dowladda Puntland u leedahay inay ka baratay caqabadihii soo maray ee roobabku inay awood dhaqaale u sameyso in dhaqaalaha ay dowladdu dadka shacabka ka qaado inay dib ugu celiso. taas marka waxayna bartay inaanu dhaqaalaha haysano wax ku qabsan karno. hadda 12 milyan iyo dheeraad baa waxay ku baxday muddada sanadka ah. hadday sahan ahaan lahayd hadday maalgelin kale ahaan lahayd cid kale naga caawisay markii labada meelood laga reebo ma jirto. labada meelood taasoo kale dhaqaalaha Puntland baa caawisay. meelaha kale oo hadda gobolka Gardafuo ugu dameeyay percentage ka mid ah shacabka community-ga bixiyay oo 50% community-ga laga ururiyay lacagihii markii roobku xakeeyay laga ururiyay way 50 kale dowladda ku dartay. dowladdu waxay diyaar u tahay inay sii wado mashruucaas inta caqabada wado xumada laga baxay maadaama uu yahay gobolka bariga uu xiga gobolka ugu dhibka badan dhanka wadamarista waa dhulkii la oran jiray gaarin waa inuusan noqon gaalwa ay noqdo dhul la gaari karo cid walba ay tigto. marka dhulkan kale dooyinkan kale noo qorshaysan priority bay noo kala leeyihiin waa noo kala horeeyaan mudnaan bay noo kala leeyihiin. saasaan ku bixinaynaa dhaqaalaheedana wixii ilaahay ummadda naga siiyona waa ku dareynaa wixii kale naga qabsanayna. ما شاء الله شركتها dhisa ma tender baad waxaa soo dhajisaan oo tartan baad gelisaan mise waxaad ku siisaan shirkadaha aqoon iyo garab tahay waxaan leenahay hay'adda wadooyinka Puntland PHA waxaa diyaarsan pre-qualification-kii iyo habkii loo mari lahaa tenderada. waxaan leenahay hay'adda qandaraaska dowladda Puntland dhammaan habraaca qandaraaska dowladda Puntland buu maraa sidaas ayuu ku baxaa in la soo bixiyo laakiin waxa lagu bixiyo wax inda garasho iyo wax reer garasho ay ma jiro. wada shaqeynta adiga iyo wasaaradda maaliyadda wasaaradda maaliyadda waa wasaaradda dhaqaalaha bixisa fanka bixisa dowladda Puntland si dhow baan wada shaqeynaa anagu technicality baan nahay farsamo yaqaan baan nahay wasaaradda howlaha guud iyo hay'adda wadooyinka Puntland oo isku xiran
quality-ga hubinta soo diyaarinta mashruuca maan leenahay wasaaradda maaliyadda lacagta inay bixiso ayay leedahay shaqo fiican baana naga dhexaysa laakiin way idinku kormeertaa soo ma sababta waxaan arkayna wasiirka maaliyadda oo kormeeraya jidadkii iyo wasiirkii oo kormeeraya bariijyadii iyo buundooyinkii macnaha taasoo ay shaqadaadu tahay marka wasiirka ma dhaqaalihii uu bixiyo kormeeraya mise kursigu kugu haystaa iyo booska ku fadhido aad baa umahadsan tahay cabdallah aad baa umahadsan tahay waa su-aal mudan la isweydiiyo wasiirku booska iguma haysto shaqadana iguma haysto because shaqada aan ka shaqeynayna isagoo aqoonba uma laha waa shaqo dhisme iyo engineering iyo u baahan wasiirku lacagtiisu kormeeranaya lacagtaan bixiyey xaggee marti wey marka inuu yimaado oo yidhaahdo lacagtii annaga naftigeeda wasaarad ahaan waxay noo tahay in nala aamini karo waxaanu soo bandhigno niri dowladda waa qabanaynaa quality-ga lahaa qorshaha lahaa aan la nimi oo dowladda aanu ku dhiirigelinay in la dhisi karo dalkan iyadoo aan ajnabi la helin shirkado soomaali ay dhisi karaan injineer soomaali ay dhisi karaan in cid kasta nagu controlsho wax dhib ay nagu hayso maaha tan maxaa ka mid ah sida gaadiidka tababarada ma ka qayb qaadataan wasiir wasaaradda sidaan kuu sheegaba waa waaxda waxay leedahay wasaaradda howlaha guud gaadiidka weye waxaa jira gaadiidka dowladda puntland oo wasaaraddu maamusho wuxuu isugu jiraa ilaa 5 qaybood qaybaha ugu kala baxo waa qaybta shacabka oo dadka dadweynaha caadiga ka haystaan oo taarka waxaa la siiyaa bulshada oo dhan leedahay oo 3 biloodba marba cashuur laga qaadaa taarka waxaa jirta gaada la yiraahdo gaadiidka dadweynaha oo dowladdu ay ku shaqeyso oo adeega loogu adeego waxaa jira kuwa ciidamada oo iyagana taarikooyin gooniya la siiyo haday booliiska noqon lahaa haday daraawiishta noqon lahayd waxaa jira kuwa hay'adaha caalamiga ah oo internationalka iyo local NGO-ga iyaguna aad siino intaas waxaa dheer wasaaraddu wax kastoo shuruuc ah oo ugu dambeeyay hadda aan diyaarinay sharciga xeerka wadamarista dowladda Puntland oo aad ogtahay in dhib badan ka jirto maadaama taraafikadii hadda tababar ka soo baxday ciidamada taraafikadu maadaama wasaaradda gaadiidka nahay waxaan diyaarinay xeerka wadamarista gaadiidka dowladda Puntland oo ganaaxyadiisii leh oo systemkiisii dadka lagu bar lahaa aqoonta wadamarista waxaa arkaysaa waddo kasta markaa martid inay dhib badan ka jirto jaam ka jiro dadaan xirfadii gaadiidku wadan ay baabuurtii wadaan si waxa looga baxo wasaaraddu waxay diyaarisay xeerka wadamarista dowladda Puntland waxaana horgeynay golaha xukuumadda haddana wuxuu marayaa golaha wakiilada haddii Ilaahay idmo bishii October in la inuu la faafiyo marjaceena ay baas gareeyaan intaas waxa dheer wasaaraddu waxay la shaqeysaa degmooyinka waxaan ka shaqeynaa waxa la yiraahdo Tombalanada 2020 Tombalankii ugu horeeyay ee wasaaraddu ay qabato wuxuu ku bilaabmay magaalada Garowe wadooyinkan quruxda badan aad aragtaan iskama iman waxay ku yimaadaan qorshe planning ay sameysay wasaaradda howlaha guud kadibna ay la wadaagtay degmooyinka anagu sideeda waxa ka shaqeynaa waa policy degmooyinkuna waa fulinti degmada Garowe gudoomiyaha runtii aad halkan uga mahad celinaya waxay ahayd dadkii ka faa'iideystay mashruucaas magaaleynta Puntland wixii ugu horeeyay la sameeyay xeerka magaaleynta Puntland buu ahaa xeerka ayaa dhaqan galay phase 2giisii wuxuu ka dhaqan galay oo saaso iyo qardho waxaan rajaynaynaa magaalooyinka Baran iyo Gaalkacyo in phase 3 noogu xigto shaqooyinkaas oo dhan bay wasaaraddu qabataa runtiina waa ku faraxsanahay in wax badan oo fiican ay qabteen wax badan aan dareemayno in naga khaldameen aan gadaal ka soo doona insha wasiir Axmed dhaqaale fara badan ayaa idin soo gala sida aan qiyaasayo in gaadiidkii dhismihii canshuuraadkii iyo waxyaalo fara badan dhaqaalahaasi ma wasaaradda maaliyadda qaada mise idinka qaada dhaqaalahaasi maxaa idinka idin hara wasaarad ahaan mise dhammaan waxaad u wada gudbisaan hay'adaha ku shaqada leh ee wasaaradda maaliyadda waa mahadsantahay dhaqaale sidiisaba waxa qaada dhaqaale dowladeed markuu yahay sidiisaba waxa qaada wasaaradda maaliyadda waa kaashirka dowladda annaga wasaarad ahaan waxaan kala shaqeynaa canshuurihii in la kiciyo waxaan kala shaqeynaa wax soo saarkii dakhligu inuu kor u kaco system ahaan baan ula shaqeynaa laakiin lacagta qaadideeda wasaaradda maaliyadda iska leh wixii wasaaraddu u baahato kharash oo ama wax lagu horumarinayo ama lagu barkay codsi wasaaradda maaliyadda loogu iyada soo bixisa sida nidaamku yahay weey maaha annaga waxaan leenahay waxa la yiraahdaa miisaaniyadda noo soo celinaysa miisaaniyadda marka anagu wax ku fulinayna laakiin maaha wax mataqaanaa inta anagu aan maamulo oo dhexda shaqaalaha guud ee wasaaradda howlaha guud shaqaalaha wasaaradda howlaha estimate qiyaas ahaan
estimate maahan waa waxa weeye waxaan hubo shaqaalaha waa 73 qof baa shaqaale ah baa ka shaqeeya wasaaradda howlaha guud markii laga reebo la taliyaasha agaasimaha guud ilaa iyo intuu hooseysa waa 73 markaad xagga qabanaysid tirada ma intaasi aynas way ka badnaayeen way ka badnaayeen 118 bay ahay dib u habeyn review badan aan ku sameynay dad badan aan dulsaar badan oo jiray wixii la habeenaya waxay ahayd in shaqaalaha mushaharkooda la kordhiyo shaqaalaha aqoontooda la kordhiyo xirfadooda iyo waxay ku shaqeynayaan adeega iyo xafiisyada ay ku shaqeynayaan hadda xafiisyadooda martid kulli waxa arkaysaa xafiis qurux badan qof walba uu fadhiyo marka sidaa daraadeed reform baa lagu sameeyey intaas kale waa isdhin